kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni falaqaynta iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo caalihi aad kala socoteen ka gaan dunida qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena daawadayaal waxa ugu waaweyn Mareykanka iyo Israa'iil oo ka shiraya dalka Iran isla markaana shir ku leh magaalada barakaysan ee Yuhuuddu qayb ahaan haysatay Al-Quds iyo arrimaha looga wada hadlayo tafaasiil badan ka hayna malaayiin muslimiin ah waxay maanta taagan yihiin buurta Carafa iyaga oo gudanaya markaasi mid kamid ah tiirarka ugu waaweyn ee xajka dawladda Sacuudi Carabiya waxay ku tooqday in xajku ay ka dhigtay muraayada ugu wanaagsan ee caalamka waxa kale oo kamid ah dalka Mareykanka oo iyaguna sheegay inay diideen shuruud ka timid dalkaasi Turkiga dadka reer Kuwait-na waxay baraha bulshada ka bilaabeen olole lagu taageerayo dalkaasi Turkiga waxaana dalka Turkiga markii ugu horeysay laga waayay lacagtiisa bariga dhaxo dhan kadib markii shucuubta Carbeed ee muslimiinta ay iibsadeen lacagtaasi dalalka markaasi Qatar iyo waliba dalkaasi Turkiguna waxay galeen heshiisyo cusub oo ay ka mid tahay in ay kor u qaadaan labadooda bangi isdhexgalaan qodobadaasi kuwa kala diyaahayna dabcan waa warbixinii iyo wararkii dhinaca diblomaasiyadda waana 20kii bisha waa maalinimo سنين و2018 ومر kale iyo barnaamijkeena falqaynta dunida iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabnay dawladda dalkaasi Venezuela ayaa waxay ugu baaqday dawladda Brazil in ay badbaadiso isla markaana ay taageerto dadka qaxoontiga ah ee reer Venezuela ee markaasi la sheegay inay dhibaato kala kulmeen deegaan ay ku sugnaayeen codsiga dawladda ayaa ka dambeeyay kadib markii isku dhacay ay ka dhaceen magaalada Bacarema ee dalkaasi Brazil isku dhacyadan ayaa waxa lagu qabatiyay xara ay ku jireen muhaajiriinta dadka reer Venezuela ee ka soo carray dalkooda dalka Brazil ku sugan dawladda Brazil ayaa sheegtay inay halkaas u dirayso ciidamo lixaad madaxweyne Michael Temer ayaa isugu yeeray kulan degdeg ah golaha wasiirada iyadoo in ka badan 1,000 qof oo u dhashay dalka Venezuela ayaa u soo gudbay dhanka xuduudda dalkooda kadib markii dhibaatooyin xooggan ay halkaas ka dhaceen waxayna dib ugu laabteen dalkooda dhibaatadan ayaa ka timid baa la sheegayaa kadib markii ay dadka reer Brazil ay ka caroodeen tirada dadka soo galootiga ee reer Venezuela ee dadkooda ka soo qaxaya kuwaas oo ku soo qulqulaya dalkaasi Brazil dawladda Venezuela waxay Brazil ugu baaqday inay ilaaliso shuruucda caalamiga isla markaana ay badbaadiso dadka hooyiga ka dhigtay dalkeeda waxayna ka digtay in aysan eega karinin dhibaatada xooggan halkaas ka jirta wasiirka difaaca ee dalkaasi Iran Amir Khatami ayaa wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay dalalka muslimiinta ay Iran ay xiriir kale yihiin asagoo oo markaasi wax laga weydiiyay sababta Iran ay u xun yihiin cilaaqaadka dalalka muslimiinta ay leedahay ayaa waxa uu markii ugu horeysay taxay in aysan jirin dalal badan oo islaam ah oo Iran isku cuna duuban yihiin ama ay sahayaan wuxuuna sheegay in ay jiraan dalal Sacuudigu uu ku qasbay ama uu ku tirtirsiiyay in Iran xiriirka u gooyaan balse aysan jirin wax dhibaato ah oo dalka Iran ay ku qabto dalalka waaweyn wuxuu tusaale u soo qaatay in xiriirada ay dalalka islaamka waaweyn waliba kuwa dadkooda aad badan yahay leeyihiin qaarkood ay yihiin kuwa walaaltinimo asagoo tusaale u soo qaatay dalalka Turkiga Afghanistan Azerbaijan iyo dalkaasi Pakistan oo uu sheegay in ay yihiin kuwa daacadnimo iyo walaalnimo sax ah ay ka jirto wuxuu sheegay in dalalka Carbeed ee markaas gobolka ka jira aysan Iran haba yaraatee aysan wax dhibaato u haynin marka laga yimaado ay dalka Saudi Arabia oo iyagu arka in ay Iran khatar ku tahay wuxuuna sheegay wasiirku inaysan iyagu hubka iyo aalada militariga urursanayaan aysan u haysanin waxa ugu yeeray walaalaha muslimiinta Amir Khatami wuxuu sheegay in xiriirka Iran ay ku doonayso inay dalalka caalamka ku hagaajiso ay hagaajin lahayd hadii Mareykanku faraha kala baxo wuxuu ugu yeeray riixitaanka dalalka qaarkood oo ku tiqtiqsiinayo ama ku tirtirsiinaya ayuu yiri in markaasi xiriirka uu ay ka leeyihiin Iran ay xumeeyaan wasiirka wasiirka loo yaqaan wasiirka tamarta iyo khayraadka dalkaasi Turkiga Fatih Donmis ayaa horay u sheegay in ganacsiga ka dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Iran uu sii xoogeysanayo iyadoo Iran ay dhawaan ku dhawaaqday in ay lacagta shidaalka ay kaga iibsato dalkaasi Turkiga ay noqon doonto lacagta Iran walina waxaan idin soo wadnaa wararkii iyo warbixinii dhinaca diblomaasiyadda wararkii ugu dambeeyay haatan Makka al-Mukarram wararka iyo muuqaalada ka imaanaya buurta Carafa ayaa muujinaya in halkaasi malaayiin qof oo muslimiin ah ay taagan yihiin maanta ayaga oo halkaasi ku alla barayaya oo eeba ku toogaya ayagoo gudanaya maalintii 9aad ee acmaasha xajka mid kamid ah maalmaha ugu waaweyn tiirarka ama markaasi acmaasha xajka Ameerika haysta magaalada Makka ama gofernatoraha ka Amir Khalid Al-Faisal ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay isaguna kamid ahaa dadkii gudanayay xaj afaafka hore ee meel u dhow masjidka barakaysan ee xurmada leh ayuu wuxuu markii ugu horeysay ku
halkaasi kaga dhawaaqay in qaabka magaalada Maka loo asteeyay haday tahay dhinaca abaabulka dadka muslimiinta ah ee xujayda soo dhaweynta dhinaca amniga taageerada ayuu yiri ay u tahay buri muraayad dunida oo dhan wuxuu yiri caalamku maanta wuxuu aqoonsaday Saudi Arabia in ay ka dhigtay goobtan mid ka madax banaan siyaasad sidoo kalena ah mid markaasi dadku ay ku soo bandhigaan iimaankooda iyo waliba khayraadka ay halkaasi u yimaadeen sida daraadeed waxaan idin tusnay oo arki kartaan buuri malay kumanaanka buuri askari ciidanka amniga ee dalka Saudi Arabia oo dhinacyada dadka la garab taagan biyo ay cabaan sidoo kale dadka siinaya kabo kuwi ay kabo ka xumaadaan kuwa markaasi taageeraya dhinaca dhaqaatiir ayaguna tuman oo diyaar u ah in xujayda wixii dhibaato ay ku yimaadaan ka qayb qaataan waxaanu dareensiinay ayuu yiri dadkanada in ay yihiin walaalada iyo sida daraadeedna waxaanu ku faani karnaa ayuu yiri in ay si weyn xujaydu noola shaqeeyeen Amir Khalid Al Faisal wuxuu sheegay in dad gaaraya 2 milyan oo ruux oo muslimiin ah oo caalamka oo dhanka kala yimid ugu badnaadeen buu dalalka islaamku ku xogan yahay ay maanta maalintii sagaalaad ay taagan yihiin buurta Carafa ayagoo xalay ka guureeyay buurta Mina wuxuu sheegay in sida muuqata ay dadku ay ixtiraamayaan buu ciidanka ammaankuna ay haraad tirayaan buu dadka waxa la arkay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalkaasi Saudi Arabia oo kor qaadaya dadka markaasi buurta taagan ee la toogaya ayagoo ku rusheynaya biyo qabow waxaana kamid tahay talaabooyinka ugu wanaagsan ee dalka Sacuudiga ama xukuumadaha Sacuudiga lagu amaano arinta xajka kolka ay timaado marka waliba dadka muslimiinta ay gudan inkastoo dhowr jeer oo xajka ay ka dhaceen dhibaatooyin iyo isbarasho xooggan dhaliilo xooggan loo geystay dalka Saudi Arabia haddana waxa muuqata in inkastoo oo karaankooda ay isugu geeyaan in ay arintan hagaajiyaan Amir Faisal wuxuu sheegay in sidoo kale ay xoojiyeen qalabka xidhiidhada dhinaca tiknoolajiyada kaamarooyinka dhinaca amniga dhaqdhaqaaqyada iyo meelaha isbuurashadu ay ka jirto wuxuu yiri hal eray ayaan idin dhahaya oo waligan ay idin ilaawi doonin taasoo aad mar walba qalbigeena ku haysataan magaalada Maka waa magaalada ugu caqliga badan buuri ee dunida oo dhan dabcanna sidoo kale magaalada ugu barakaysan caalamka oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dunida ka doortay isla markaana uu barakeeyay wuxuu intaas ku daray in ay sidoo kale ay sameeyeen aabab gaar ah oo xujaydu ay leeyihiin taasoo si fudud telefoonadooda inta loogu soo shubay tusaysa meesha ugu dhow ama inta feed ama inta talaabo ay u jirto goob adeeg caafimaadka goob banaan iyo goobaha khatartu ka jiraan oo dhan taasoo uu sheegay in horumar weyn ka sameeyeen wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Saudi Arabia ayaa asaguna wuxuu sheegay in dadka ugu badan ee sanadkan soo xajiyay ka yimaadeen dalalka Masar, Hindiya, Pakistan iyo Bangladesh wuxuuna sheegay in ay dadka oo dhan ay ka yimaadeen dunida oo dhan waxayna ka dhaqaaqeen buurisaaka salaadii hore oo ay xalay kolkii oo ka hoydeen buurta gaar ahaan dooxada Mina ayuu sheegay halkaas oo ay markaasi maanta ay taagan yihiin buurta Carafa dadka ayaa markaasi halkaas ku la toogayay iyadoo kumanaanka muslimiinta ah ee markaasi halkaasi Allah ku bareeyaan in acmaasha uu eeba ka aqbalo inagana soonta Allah inaga aqbalo dadka inta sooman ee muslimiinta oo dabcan ay tahay dadkan maanta aan si u yeelan in xajka joogan ayaguna inay maalinta sagaalaadka soomaan birina cid mubaaraka deebina gaarsiyo dabada qiimaha leh halka nagala socotaan warfadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay warbixin dhinaca diblomaasiyadda dabcanna sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan ayaa war gaar ah oo uu siiyay journalka ama jariirada la yiraahdo Wall Street Journal ee dalkaasi Mareykanka wuxuu sheegay in wada hadallo si hoose u socday oo u dhaxeeyay aqalka cad iyo Ankara uu guuldareystay kadib markii Turkigu ay ku xidhan shuruud siideynta baadariga ku xidhan dalkaasi Turkiga ninkan oo magaciisa diiday inuu sheego waa ninkan aqalka cad u hadlay ayaa wuxuu sheegay in Andrew Prison ay ku xidhan inay siidayaan Turkigu in Mareykanku uu ka noqdo ama uu saamaxo lacag malaayiin dollar ah oo lagu ganaaxay bangi Turkiga ah oo la sheegay inuu cilaaqaad dhinaca ganacsiga ah uu la lahaa dalka Iran intii Iran uu saarnaa cunaqabataynta gaar ahaan bangigaas uu ka howlgalayay gudaha dalka Mareykanka waxa warka intaas lagu daray in ay ku gacan saareen arintaasi Mareykanka markii ninkaasi uu sheegay hadalkaasi oo wargeyska ama la yiraahdo Wall Street Journal oo soo qoray ayaa waxa bartiisa Twitter-ka ah hadaladii looga bartay ee markaasi maganbadanimada ah ku qoray madaxweynaha aan la filan karin ee dalkaasi Mareykanka wuxuuna yiri Turkigu waxa ay ka faa'iideysanayeen Mareykanka muddooyin badan ama sanado badan hadeerto waxay gacanta ku dhigeen oo ay haystaan ayuu yiri wadaadka iyaga la yaab kale ee ay ku haystaan kaasoo ah buu yiri mid dalka Mareykanka ama qaranka Mareykanka mas'ala loona haysto si joob ama loo haysto si afduuba waxaanu idin leenahay Turkiga hadaatiin waxba bixin
kuna bixin mayno inaanu ku bedelano ninkan aan waxba galabsan laakiin waxaanu dib u goonaynaa dhamaan waxyaalihii Turkiga naga gaarayay ama dabcan waxaanu Turkiga ayaanu ka jari doonaa arintaas ayuu ku tooqay madaxweyne Donald Trump wadaadkan reer North Carolina ama gobolka North Carolina ee dalkaasi Mareykanka ka soo jeeda ayaa labada dal xiisadooda cirka ku shareeray iyadoo xiisada labada dal aysan taakari ahayn balse ay jiraan dhacdooyin kale oo yaab leh oo labada dal ku meeran in badan aynu ka hadalnay sarkaalka ayaa sidoo kale wuxuu intaas ku daray asagoo la hadlay wargeyska la yiraahdo The Wall Street Journal ayaa wuxuu sheegay in la diyaarinayo toddobaadkan hadeerto bilowday maanta ee u bilowday dalka qarbiga ee maanta isniina bilowday gudihiisa ilaa bartamaha toddobaadka uu diyaarinayo madaxa maaliyadda dalkaasi Mareykanka Stephen Mnuchin inuu tallaabooyin cadcad oo hor le ka qaado dalkaasi Turkiga oo ay ku jirto balay cunaqabatayno aan la dhayrsan doonin waa sida uu ku hanjabayaan Mareykanka dawadaasha qiimaha leh wali waa wararkii iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda haatan magaalada xarunta waa dalka Falastiin ee la haystay Qudus waxaa ka soconaya shir albaabadu u xiran yihiin oo u dhaxeeya hogaamiyaha Yahuuda Netanyahu iyo ninka la taliya dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton shir Mr Bolton oo isagu ah dadka kelmadaha ugu dambeeya leh ee dalka Mareykanka isla markaana caan ku ahaa inuu ka qayb ka ahaa dadkii ka dambeeyay dagaalkii Iraq ee 2003 kolkii uu ahaa safiirka dalka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ahaana ninkii inta badan ku tooqay inuu Mareykanku burburi doono qaramada midoobay kolkii Faransiiska iyo dalka Ruushka ay codka fiitada qayaxan ay dul saareen dagaalkii Iraq la ansixiyo ayaa haatan wuxuu olole xoogan ku wada ama uu ka wada bariga dhexe oo doonayo in Iran lagu duulo war qoraal ah oo ka soo baxay warbaahinta dalkaasi Israa'iil lagu soo qoray ayaa waxay sheegayaan in taliyaha dhinaca amniga qaranka Mareykanka iyo Mr Netanyahu ay ka wada xaajoonayaan waxa loogu yeeray galaangalka Iran ee gobolka xoogeysanaya warka ayaa intaas ku daraya in labada hogaamiye oo ku shiraya xafiiska uu Netanyahu ka sameystay bariga galbeedka magaalada aan ilaahdo Qudus ee barakaysan ay tahay baa leeyahay mid lagu qaada dhigayo hubka culus iyo saanadaha military iyo horumarka Iran ay ka sameynayso taasoo ciwaan looga dhigay baa leeyahay kulanka gardarooyinka Iran ee gobolka waxa la sheegay in ay isdhaafsanayaan bashqado iyo warbixino waaweyn dalka Israa'iil ayaa iyagu markaas aad ugu ololeynaya in Iran talaabo military laga qaado halka Saudi Arabia ay ku taageersan tahay waliba dalal kale oo Carbeed Saudi Arabia ayaa iyagu hore u sheegay in ay talaabo kasta oo Iran talaabo looga qaadayo isla markaana lagu burburinayo ay ka yihiin dalka ugu horeeya soo dhaweynaya halka Imaaraadka Carabtuna oo isaguna la mid yahay dhawaan warbixin ay qorayeen warbaahinta dalka Israa'iil ayaa sheegaya in dad kamid ah ciidamada cirka dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta ay tababar iyo waliba dawlatus dhinaca markaas dhaxgalka la leeyihiin kuwa Yahuuda ee gobolka kaasi bariga dhexe ka wada dhibaatooyinka iyagoo la sheegay in diyaaradaha dagaalka ay ku tababaranayaan Imaaraadku ay ka qaadeen weerar xagga cirka ku qaadeen magaalada Qasa inkastoo taliyaha booliiska ee magaalada Abu Dhabi iyo xarunta dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta uu warka beeniyay haddana ma jirto saraakiil sare oo dhinaca siyaasadda ah oo beenisay oo ka tirsan Imaaraadka wararkii ugu dambeeyay shirka halkaas ka soconaya ayaa la aaminsan yahay inay ka soo bixi doonaan wax loo maleeynayay inay yihiin laba qorshe oo ah ka dhow iyo ka fog qorshaha dhow ayaa Mareykanku wuxuu ku doonayaa inuu ku hubiyo bilooyinka soo socda in Iran jilbaha dhulka loogu dhufto dhinaca dhaqaalaha isla markaana cunaqabateynadan xoogan ee lagu hayo ay guuleystaan haddii arrintaas ay socod weydo ayaa la sheegay waxa loo yaqaan plan P ama qorshaha labaad inuu yahay in Iran lagu duulo inkastoo ay dhamaan xeelarayaasha dhinaca amniga qaranka Mareykanku ay ka digayaan inaysan taas sahlanaad doonin maadaama Iran aysan ahayn dal dhanka military ahaan ka jilicsan hase yeeshee ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa asagu doonaya in ay talaabadaas noqoto mid la soo dedejiyo wuxuuna sheegayaa in dalalka cadbeed oo dhan ay taageersan yihiin sida daradeedna aysan jirin arrin looga gamagaabsado oo markaas dib loogu dhigo dawadaasha qiimaha leh dabcan qodobada dambe ee wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ha moogaan daqiiqadaha soo socda